السلام عليكم. muuqaalkeenii hore waxaan kaga soo hadalnay grammar laantii muxuu hadli karaa luqadda Ingiriiska. Muuqaalkan maanta wuxuu noqon doonaa iskilka loo yaqaan speaking-ka. Sideen luqadda Ingiriiska uga hadli karayaa? Run ahaantii waa mowduuc aad u ballaaran, laakiin waxaan isku dayi doonaa inaan soo koobo. Ugu horreyn halkan waxaa inoo yaala 5 ilaa 6 qodob kuwaasi oo ay tahay inaynu muuqaalkiina ku soo koobno. Haddaba intaan muuqaalka bilaabin waxaan ku bilaabi doonaa su'aalo. Su'aalaha waxaa ku xigi doona markaa video aan la wadaagi doono kaasi oo ah qodobadan halkan ii yaala markaa. Ugu horreyn ardayow ma ku dhiban tahay luqadda Ingiriiska inaad ku hadasho ay afkaaga ka soo baxdo markaa 5 ilaa 6 jumladood oo sax ah ay afkaaga ka soo baxdo ma ku dhiban tahay? Jawaabta hadday haa tahay muuqaalkan waa muuqaalkaagii. Waa su'aasha labaad ardayow ma ku dhiban tahay luqadda Ingiriiska inaad fahmi karayso laakiin markaad tiraahdo hadal aad hadli kari weydo? Hadday dhibaatadaas ku haysatana muuqaalkan waa muuqaalkaagii. Ardayow sidoo kale waxaad ii ogaataa muuqaalka halkan kasoo bixi doonaa waa xogtii oo diyaarsan iyo sababtii aad hadal kaaga soo bixi waayey. Marka ila fiirso Google-kan ka baaray oo halkan ka soo bixi doonaa. Waxaan jecelahay inaad soo aragtay muuqaalka. Haddaba qodobadan waa 5 shantaasi oo ah why some of people struggling with speaking English. Shantan qodob waxaan doonayaa inaan sida ugu dhaqsaha badan soo koobo ardayow. Taasi aan kusoo koobi doono muddo aad u yar. Haddaba waan taaban doonaa qodobadu maxay yihiin sababay inaad hadli kari weydo luqadda Ingiriiska ku hadli kari weydo. Qodobka koowaad kaasi ay tahay inaad sare u qaaddo vocabulary waa erayada. Aan ku weydiiyay imise eray ayaad ku sheegi kartaa 5 sekin? Imise eray ayaad ku sheegi kartaa 1 minute? Waa su'aal aan ku weydiinayo. Waayahay halkaas aan kaga tegayaa. Qodobka labaad waa muuqaalka hore ka soo hadlay waa grammar and pronunciation. Qodobkan isaga ku dheeraan maayo. Markaad luqadda erayadeeda aad soo barato ilaa 3,000 ilaa 8,000 eray hayso grammarkiisa isagana waa inaad timaadaa. Qodobka saddexaad oo run ahaantii muuqaal gaar u baahan oo aad u ballaaran ayaa wuxuu yahay ardayow learning methods. Hababka aan luqadda u dhiganay ayaa kala